إلهي بني آدم كوحان العقل ويالي حيوانات ولا جدية ولا كرامية عقل قاس إنه كفايدة وحان ربع إكزامبل حيوانات كمية إلى السوقات إكزامبل ونوع نقل إنه قد يضو قاعدة مدحنا الصومالي يدك مدح كرم إنه كان نقلان حتى في يوتشرك حيوان كاس السوق هذا نايا شمبرها إذا كانوا كنا نقول كان قبلها واتقانا شمبرها حلقة قبلها وين هاجران صومال هذا تيرو يسول لابتان هل شمبر كل جت سعنا يسمى مجرته شمبرها وحيقول دولان جروب مركا لباري علمي أهان وحال أوجادي هل شمبر كل جت مركا يبوبا يسو يا جروب شمبرها مركا يبوبا يان بقول كيف تدواتن يكون أما تدواتن يعني وابوف 70% يا دولمات معناها velocity وكبضنا مركا جروب نقد ومعجزة شمبرت كل جت مل متذكرته marka groupkaas ay sameeysanay dhaqsi boqolkiiba 70 waa wax badan noqdo dhaqsiga ku tagayaan maxaan ka baranaynaa waxaan ka baranaynaa team working qof kaligiis wax ma suubin karo taan u noqono hadii aan la raadinin meesha hada wax ma aragta markay ka dhumaan meeshii wax ka qalloocdeen la tagaa meeshaas xalka ka soo fiirnaysaa Soomaaliya xulul badan la isku day aan midkoodna sax ahayn haddaan galaal u noqono carto يعني waxaan rabaa history inaan u noqono waxaa la yiri Soomaaliya dawlad ha loo dhiso hal raadiyo halkii la raadinayo waxaa la yiri hal raadis baan xaq raadis ma nihin war halka aan xaq ku bays garaysneen xaq ku geynaya halka aan cadaalad iyo xaq aan ku bays garaysneen waligeed hadayna Soomaaliya cadaalad si aad nabadgelyo ku hesho waa inaad heshaa justice markaad hesho nabadgelyaad helaysaa nabadgelyo markaad hesho dawlad iyo horumar iyo wax walba ka hadlaysaa intay cadaalad maqan tahay wax ma helaysid xataa dawladda muslim xataa hadayna ahayn laakiin ay caadil tahay way jirtaa waa wax la arkay dawlad muslim sheeganaysa hadayna cadaalad sameynaynin mulkigeedu wuu zuulaya wuu burburaya marka meeshaas laga soo bilaabo 4.5 laga soo bilaabay wax power sharing system maxaa 0.5 ka keenay dad muslimiin ah waligood dhiig daadinin gacantooda qori ku qaadin dagaal rabin qof ka badan male 0.5 ka la soo tiriya waxaan rabaa maalinta la soo tiriya 0.5 bal inay dadka ka yaraadaan kama yara dadka dulmigii meesha ka soo bilowday dawlad asaaskeedii dulmi lagu asaasay inay jirto seed ku sugayseen dad aqli leh ma ahan inay sugaan way shaqeeyaan weyse ambagaati la tagay tu kala la soo sameey war bini aadanka ilaahay muxuu oga duwa xayawaanaadka hadii wixii ay shaqeyn waayeen wax kala raadi لأنه إسلا وحي إنها تكون سعطة نتيجتها هورا كدوان مينا الهيشو ووحان صورة قال لهين إسلا 4.5 كي ظلم يجيبها لقوسي سعودي وارغنا عواقب تير إلا ما الله لا عدالة ومن ملايين يسوى مالي إنها قاقيس بسم الله الرحمن الرحيم walaalayaal islaanta islaamka ayaan idinku salaamay cid gaarana ka caban mayno Soomaaliya oo dhan baan ku cabanayna inta af Soomaaliya ku hadasheen iyo meel kasta degan ilaahay baa mahad iskale naga dhigay kuwa aan wax dulmin ilaahay baa mahad iskale naga dhigay kuwa aan wax dulmin ilaahay baa mahad iskale ee naga dhigay kuwa aan wax dulmin ilaahay baa mahad iskale برنامجنا أو بحسن ولا ليال حامرين ولا الحمي أنا وحنا أقول لها حل كيف نكشر ناي حال بهاي ناير ضمبي تمعني ذو حوي عد كستو أنت وحكا قبنيسة أما كهذا لسوان سود ويننا لكن وحكا استعيني عادين سيدا لركايا مهمة سؤال شو واحد هاي حال أنه جديد منه لكن حال كيانو قادنا نصينيه الشخص بان الصيني
ma dawlad baa na siinaysa ma dad gaar ah na siinaya ma gobol baa na siinaya ma madaxweyne na siinaya waxaan doonaynaa cidda xaalka na siinayno aanu ka qaadanayno inaanu ogaano mudanayaal marwooyin si aynu dhibaatada dalka daba dheeraatay aan wax uga qabanno waxaan u baahannahay isbeddel dhab ah isbeddelka dhabta ah ma aha qof beddelaya ma aha dowlad beddelaysa waxa weeye isbeddel hab dhaqameed siyaasadeed waan ku hoos ku xusan waa inaynu beddelno habdhaqanka siyaasadeed ee marka doorashada la galayo ama la gaaro lagu faano dowlad baa ay wadata oo dadka ii jujuubaysa intaas waaba dhaaftayba waxay taagan tahay dowladdu intay timaado ay tiraahdo hebel baan rabnaa hala doorto lacagteedana waa ka daba keenaynaa dalkan beec maaha dadkiisuna beec maaha waalidiinteenu iyo aabbayaasheenaan ka dhaxalnay annagana carruurteennaa naga dhaxlaysa Soomaaliya waxay la mid tahay burgubtay dab qabsaday dadkii lahaana ay dabka gasheen ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu naga rabaa inaan ku dhaqanno sharcadiisa anagu kaasaan wataa 2004 waxaan ahaa 28 murashax baan kaligay kitaabka ka taagay oo iri liibaanteena adduun iyo mid aakhira waxay ku jirtaa annagoo ilaahay adeecna kitaabkiisa shariicadana aan isku xukunno laana waa muftaaxi cadaaladda waa muftaaxi midnimada weeye muftaaxi waxa weeye kalsoonidii dowladda lagu qaban lahaa weeye muftaaxi irsaaqda ilaahay noo furi lahaa weeye warkaa mid ka fiican miyaan aragno وما مقنع عيلنا وما قضنا مسؤولية ده انت عليك تي إلهي يروي وحنو بندقنا مسؤولية ده إركا يدولك يبوره مركز سيديدين مركز آذنه قاضي إنه كان ظلوما جهولا حد آذنها سنكم ده مسؤولية دي إركا يدولك ديدين أبال قدر هادين أيان إذن كعب صدي إذن كنوا وايد ديفتين markay halka taagan tahay waxa qaadi kara ama laga rabaa inay qaadaan Soomaali meelay joogtaba qof kasta oo garaad loo mas'uuliyadaas Ilaahay horti iyo shacbiga horti sabab saaran tahay aniga kaliya ma saara waxay saaran tahay baarlamaanka aanu dooranay si gaar ah u saaran tahay waxay saaran tahay duubka ina doorto ayagu ina dhalay macal madaxweynaha duubkii dhalay bay saaran tahay waxay saaran tahay haweenka Soomaaliyeed waxay saaran tahay 2000 ergada ahayd bay si gaar ah u saaran tahay waxay saaran tahay ummadda Soomaaliyeed shanta qaaradood meelay joogtaba inay markaan gacantayada ka bixin ee sida ay u hayso balad iyo baadiyaba mas'uuliyad caam weeye maaha mas'uuliyad khaas ah waxaan codsanayaa mas'uuliyadda inta la eg oo aniga aad magac ahaan hormuud iga dhigteen Ilaahay hortii inaad ka ballan qaadaan inaad ila qaadaysaan adnan kaligay igu eeganay وما هتسنتي إلهي وحيره وفو بالعهد إن العهد كان مسؤولا إله مغل أنت عرتتي من نيني بلن قادين أنت الصومالي ده وان كلا الله يالكاس نيني نلا قادين مسؤولية داس
gunnimo cilmiya ama tacliina wax afka hooyo aan ahayn oo naga bixin kara ma jiro marka taas markaan garanayna cilmigii kale waa badan yahay waana ballaaran yahay wixii lagu baran karaa oo afka hooyo mid kale uma baran karo taasaa kaga bixin karta jahaalada amaba addoonnimada cilmiga kaa saari karta marka saa darteed afka hooyo ayaa waqtigii ku oran maayo barnaamijkeena iyo saddex dhigayna kuma dhigi waxaan ku lahayn waa wax ka dhaxeeya gudiyaalka ama dawladda ka dhaxeeya inay u fariistaan iyagu maalin bil yiraahdaan oo gooyaan meecan kuma aan maalin bil ku laakiin waanu dhigaynaa kulligeennana walow aanaan goynin maalin fulaan waa isku ogolnahay wax kale oo Soomaaliya ay uga bixi karto aqoon darrada ama gumaysiga cilmiga ay uga bixi karto afkooda marka waa dhigaynaa dhalinta yar leh waxaa ka buuxa saad ka warqabtiin dhib badan aynu soo marray yaa laga sheekayn karaya sugi tiro badan oo aan sugnay baa laga sheekayn karaya rajooyin badan oo wax badan aan wakhtiga kan sugnay baa laga sheekayn karaya intaasoo dhan ayagoo wada jira waxay ku dhigan yihiin qaluubtayada ayadoo shay keliya ay yihiin maanta waxaynu nahay Soomaali baan nahay maanta waxaynu nahay xor talada iyada gacantana ay noogu jirtaa waqtiga kan aan idinla hadlayo waxaad tihiin xor dawlad oo adinka gacantiina ku jirtaad leedihiin waxaad leedihiin bandiirad yaad leedihiin waa gallad ilaahay waa inaynu adkaynaa oo aynu dhowrnaa adduunka si wanaagsan nagala jooga hadda oo ummad badano ay nagala joogto maraka ka ahaado rabiddayada aad aynu u doonayno aan u rabno inaynu jecel lahay shucuubka adduunka waxay tahay in la wada maqlay maanta maxay ahayd secretary jawaabtiisii waxay noqotay arrinkii sidii aynu doonaynay inuu dhacay inaa kulli ka wada dhageysantiin baan maraynaya maalintii isniintii ayaan hadalkii istaad markaa waxaa may dowladda Ingiriiska awalba u sii go'nayd waxa ay doonayaan inay yidhaahaan ase haatee ida meesha ku jirtay waxa la hubinayay waxaan la doonayo dowladda la doonayo mid dadkii wada doonayo dad u qalmaana gacantooda ay gelayso inay tahay in kala loobsanayay dadka labadii casho hore aan saragnayba baadniin arrinku la baarayay dadka meesha jooga iyo dadku sida wax doonayaan iyo saa loo eegay arrinku inuu wada dhab yahay iyo inuu maxay jibo arrinku inaga yahay la baarayay dadka markii taas caddaatay maalintii arbacadii gelinkii dambe shalayto ayuu noo yimi colonial secretary magaalada dadana khudbadan kala sheegay ayuu akhriyay hadalkii waxa weeye guntiisii bisha kowdeeda July kowdeeda inaynu dawlad ahaano si aynu walaalin Soomaaliya isu raaci karro ayuu guntiis noqday marka maanta wada dheer oo aynu soo maray ayaynu maanta maxaa hayday joognaa madaxeedii asaacatay midkii ka dheer kana adag ayaa imika aan gelinaa dawladnimo loo qayliyaa dawladnimada doonayna la yiraahdaa waa suura gashaa maanta deynaba soo qaylinay hal dawladnimadii asaacatay ka adag wuxuu yaariga ka sii adag maanta aynu isaga madaxa la galnay hal dawladnimadii laakiin mas'uuliyad badan iyo dhib badan ayayna la imanaysaa marka iyadii maanta dagaalka kii u horeeyay ayaan maanta xallayno weyn garayn kuna jaxnay
kamaanta inuu hareena kii ka weynaa buuxa waxa nabiga laga sheegay sallallahu alayhi wasallam iyadoo laga soo baxay dagaal weyn markii laga soo fariistay asxaabtii wada daalan oo meelo wada quban oo nin waliba maxay hayday qoontiisi dhaayo ayuu la leeyahay dagaalkii yaraana maanta weyn ka soo baxay kii weynaana inuu soo galo asxaabtii wada naxday baa leeyahay markaas leeyahay ya rasuulullaahi dagaalkan maanta galay mid ka weyn ma aan filaynin ka weyn waa dagaalkan aan soo galay nabigeenu caadada dagaalamayay buu haawi كان ما تقولنا إما كقلينا إنه حرينا وحوي كان نفتين ودقالمينا وحيحن يوحي السنة نفتين كعلنا وحيحن وحي سنة أقدرين مركز إما جي مانت أجنبي يعني دولة دوصار يا ما إنه ودك إنك حين ضمين كاس وين جبت جديد جولاي ما أنت جولاي بين الصومال وين الصومال إسرائيل إما قلنا تنتين يدل كنيبة يدين تنيبة نوتلنا وأنا أقول هذا بها ولا هيساي ثلاثة أمانت تلوين وي إن نجوز تلين كراح بدن بين الأجنبي نوتل ما يدن تيجانا قبسين نوتل مين لأن نجيب حاجة نبي إن نجي أمانت اللي نكرتي إن نجوز تلين كراي دونه يين كلام عالم كوين يجي إلى يوم نقولت ووحى طريقي شرعك وقال لنتني ذوقي رسولكين وطبعا مرسيتني نيدير الدرن إبليسي دفاض وقرار طلع عيد جعل ما كنتين ولا دير الدنين قرانين وحسا وقليدان بوسنايين دوكا هشام فرنسي هذا وديك طاني دبيمو إني قريا ويدين دايايين درهمكو إني قوى عياتي قويتاني marka hore dabku idinka dhigid martidiise marka xigaana daabaqaadayu idin darisiine marka xigaan dalku idinku odhan duyo dhaafsadaye marka iga kusoo edeenka rahiisida sabeeraaye gidigeedba soomaali baan dayka kaaye dhaxaan darawiisa inii doonta gaaladaye dhaxaa askaara u dalbaday daraada taageene manto aan diyaafadiyo guudareejo eegayey baldayay waxaynagu fadhiin daraaf nijaaseedeke sheekha waxaa loo soo jeediyey in gumaystaha lagu akhriyo qur'aan si ay ilaahay ugu dulkiciyo laakiin sheekha waxa uu soo qaatay koob waxaan uu dhex dhigay culimmadii u soo jeedisay in qur'aanka lagu akhriyo gumaystaha waxaa loo yidhi koobkan ku akhriya qur'aanka iyo ku jibiyey kadib markay caddaatay inaan koobkan qur'aanka lagu jibi karin ayuu bakoorad soo qaatay markaas ayuu wuxuu ugu daray bismillaah allahu akbar koobkii uu kala jibiyey waxaana uu ka tegay hadalkii caanka noqday oo ahaa bisinka xoog ha lagu daro
بسم الله الرحمن الرحيم وانا هلي ورقة هذا وانا فهمي وحي كقرنا لكن واقصب إن كوشيغو أنك ما أقولين أمر كذا ما نراعي دون شرعي هذا دولة هذا شرعي لا هاي أنا شرعي أيان لنا هاي أنك ما أقول شرعي عن شرعي جانا أهين شرعي جانا وشرعي الله إيو رسول كيسا أنك تتكلم منهن ولجانا ما حكم من قميستها سبتي منا نحكم دونه أبدا أبدا haddii aad dalkeenna timaaday oo aad nagula dagaalamayso dhammaan si kasta oo suuragal ah ayaan kugula dagaalamaynaa adduunyadan waa qariib mana doonayno inaan sii joogno waxaa noo fiican inaan dhimanno innagoo difaacayna sharcigeenna